الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan halkan ku qaban doonaa casharo aan u bixinayno taxanaha magacyada Ilaahay ee 99 ah oo aan ka hormarinayno dhowr cashar oo aan u bixinayno casharo horodhac ah oo u noqon doona saldhig iyo asaas si hadhow loo fahmo loona weeleeyo marka aan rabno inaan sharaxno magacyada Ilaahay subxaanahu wa tacaala. casharkan wuxuu ku saabsan yahay in faham guud laga helo waa maxay magaca Ilaahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqiga uunka oo dhan isaga abuuray. maadaama uu uunka isaga abuuray waxaa waajib ku ah intii uu abuuray inay isaga yaqaanaan oo ay magaciisa yaqaanaan oo ay magacyadiisa yaqaanaan oo ay tilmaamihiisa yaqaanaan. sida darteedna Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu quraankiisa ku yiri fa'lam annahu laa ilaaha illa allah. waxaad rabaa inaad barato oo ogaato laa ilaaha illa allah. waxyaabaha aad baranayso ayay ka bilaabanaysaa. waxaas aad baranaysa marka waa xaq lagugu leeyahay. ilaaha ku irsaaqay ee ku abuuray ee koonka ku keenay wuxuu xaq ugu leeyahay inaad garanaysid si aad u gaartid marka tawxiid oo ah Ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad keligiis caabudo keligiisna aad cibaadada u gaar yeesho. waxaa laga rabaa marka koowaad inaad Ilaahay garanayso. Ilaahay inaad garanayso waxaa loola jeedaa inaad hubto garashada Ilaahay aad u leedahay, rumaynta aad rumaynaysana inay dhabkaa tahay oo ay qalbigaaga ku jirto, maskaxdaaduna inay aqbalsan tahay, taasoo ka dhalanaysa inaad Ilaahay subxaanahu wa tacaala keligiis u aqoonsan tahay inuu isagu sharafta leeyahay, inuu isagu jiritaankaaga sabab u yahay. marka dambena waxaa laga rabaa haddii aadan islaamnimo ku dhalanin inaad ku dhawaaqdo qiritaanka ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah. haddiise islaamnimo aad ku dhalatay waaba waxaad mar walba taqaanid oo aad ku dhawaaqaysid. culimada salafku marka ay fasirayeen aayadda quraanka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduun waxay ku fasireen cibaadadaasu inay ka bilaabato aqoon inaad Ilaahay u lahaato. haddii aadan Ilaahay aqoonin sidee baad u caabudaysaa? sidee baad tawxiidkiisa aad ugu dhigaysaa mid barax tiran oo aad keligiis ku caabudo? culimada mu'arikhiinta oo kala duwan xataa qaar aan muslimiin ahayn marka ay dunida ku wareegeen waxay yiraahdeen waxaanu aragnay magaalooyin aanan u dhisnayn derbiyo waardiyeeya waa aragnay, magaalooyin aan iskoolo lahayn waan aragnay, magaalooyin boqorada xukumaa aysan guryo waaweyn oo qurxan deganeen waan aragnay, laakiin maana arag magaalo aysan ku dhex oolin goob Ilaahay lagu caabudo. magaalo kastoon tagnay waxyaabo badan oo aan ka weynaynay way jirtay, laakiin magaalooyinka inta badan waxaan ku arkaynay goob la leeyahay goobtan Ilaahay baa lagu caabudaa. sidaa darteed Ilaahay caabudaadiisu waa wax khalqiga intiisa badan ay wada ogol yihiin diiman kala duwan iyo siyaabo kala duwan haddii rabaan ha u caabudaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ereyga allah quraankiisa aad buu ugu soo arooray ilaa culimada qaarkood ay dhahayn 2,000 jeer ka badan buu quraanku ku jiraa oo mar Ilaahay tilmaantiisa la sheegayo, mar magaciisa la sheegayo, marna ficilkiisa la sheegayo. waxaa kaloo garab socota Ilaahay subxaanahu wa tacaala quraankiisa waxyaabaha uu dadka ku dhiirigeliyay waxaa ka mid ah inay isaga bartaan oo jiritaankiisa bartaan oo ay magacyadiisa bartaan. Ilaahay quraankiisa aayado ka badan 30 uu ku dhiirigelinayaa dadka inay bartaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Ilaahay wuxuu leeyahay i'lamu anna allaha casiizun xakiim wa'lamu anna allaha ghaniyyun xamiid fa'lam annahu laa ilaaha illa allah. aayadahaas oo dhan waxay ku tusinayaan in Ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sheegayo inaan Ilaahay barano oo aan magaciisana barano. aayadda la yiraahdo aayadda ugu weyn quraanka acdamu aayatin fil qur'aan al-kariim oo aayatul kursiga ah kulligeed ama inteeda badani waxay ka hadlaysaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala ama magaciisa ama sifadiisa. ilaa culimada qaarkood markay aayadda fasirayaan ay aad ugu xeel dheeraadaan oo ay dhahaan aayadaasu kelmad walba ama jumlad walba keligeed bay u istaagi kartaa haddaad kulligeed wada akhriso. allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm
mid walba waxay ku tusinaysaa magac uu ilaahay subxaanahu watacaala leeyahay ama sifo uu ilaahay leeyahay oo ku dhammaanaysa wahuwa alcaliyu alcadiim. suuradda la yiraahdo waa suuradda qur-aanka ugu weyn, waa suurat alfaatixa. suurat alfaatixa marka akhriso waxaad ugu tegaysaa ilaahay subxaanahu watacaala magacyadiisa: alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, alraxmaan alraxiim, maaliki yowmi ddiin. qur-aanka waxaa jirta suurad la yiraahdo thuluth alqur'aan, oo ah qur-aanka markii saddex loo qeybiya mid ka mida waay. iyadana magacaas iyo maamuuskaas iyo tilmaantaa waxay ku heshay in ilaahay subxaanahu watacaala tilmaantiisa iyo sifooyinkiisa iyo magacyadiisa ay kuu sheegtay. qul huwa allahu axad, allahu samad, lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. sidaa darteed culimmadu waxay leeyihiin sida ilaahay subxaanahu watacaala uu qur-aankiisa isugu sheegay, kitaab kale oo uu isugu sheegay ma jiro. qur-aankana markaad u fiirsato magacyada ilaahay markuu ka hadlayo laba dariiquu maraa. dariiqo uu si guud uga hadlayo walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha, oo si guud lagu leeyahay ilaahay magacyo wanaagsan buu leeyahay, magacyadaas ilaahay ku bari. ama mararka qaar si toosa buu magacii u aadayaa wahuwa alghafuuru alwaduud innahu huwa atawaabu alraxiim, oo la rabo inay dhegtaada iyo maskaxdaada ay gasho magacaa tooskaa uu ilaahay leeyahay. culimmada muslimiintu waxay sheegeen siyaabo kala duwan inay qur-aanka ugu soo aroortay magaca ilaahay. mar in si toosaba magaca loogu sheegay oo ay xisaab ahaan ku qiyaasayaan ilaa 55 jeer in qur-aanka magaca toos loogu sheegay. mararka qaarna waxay yidhaahdeen waxaa lagu xusay iyadoo muujinaysa magaca ilaahay subxaanahu watacaala, ama sifo ilaahay ku muujinaysa, ama ficil ilaahay subxaanahu watacaala ku muujinaysa. mathalan innahu ghafuurun shakuur, ama wallahu yaqbidu wa yabsud. yacni markaasa laga soo saarayaa magaca oo ah alqaabidu walbaasid. waxay kaloo culimmadu sheegaan inay jiraan magacyo aan qur-aanka kusoo aroorin laakiin axaadiista nabiga caleyhi salaatu wasalaam kusoo aroortay oo magacyo fara badan ah oo alwaajid, almaajid, almuqadim ay ka mid yihiin. sidaa darteed magacyada ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa lagu sheegay ama nusuustiisa lagu sheegay waa tirada ugu yar ee aan haysanno magacyada aan garanayno, laakiin magacyada ilaahay intaas mar walba way ka badan yihiin. magacyada ilaahayna waxay u qaybsamaan kuwa rabbi subxaanahu watacaala tilmaantiisa ah oo sifo asaga toos u tilmaamaysa ah, sida alxayu, alcaliimu, alsamiicu, alqawiyu, alcasiiz, ama sifooyin mashiicadiisa ka waramaya oo mararka qaarna uu wuxuu rabo kugu siinayo ama uusan kugu siinaynin, sida sifooyinka alrazaaq, altawaab, alcafuu. ama sifooyin ilaahay subxaanahu watacaala ammaantiisa sheegaya oo inuu ilaahay subxaanahu watacaala ceeb ka salin yahay, tilmaamihiisa wanaagsan ee ammaanta u noqonaya sheegaya, ee nasaahadiisa sheegaya, sida alquduus, assalaam, assubuux. saa darteed waxaa kaloo jira magacyo ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay wax kastoo ammaanaba ay ku hoos jiraan, sida magaca almajiid, alsamad, alcadiim. waa magac wax kasta ay ku wada jiraan, ama sifo ah ama tilmaana ama waxa ilaahay ammaanayo dhanba laga wada helayo. sidaa darteed ilaahay addoommadiisa wuxuu aada iyo aada ugu dhiirigeliyaa inay ku caabudaan kuna baryaan ayna bartaan magacyadaas uu ilaahay subxaanahu watacaala leeyahay. watawakal cala alcasiizi alraxiim, alam yaclam biana allaha yaraa, iclamuu ana allaha yaclamu maa fii anfusikum faxdaruu. maxaas oo dhan waxay ku tusinayaan ilaahay subxaanahu watacaala cibaadadiisa iyo jiritaankiisa iyo barashada magaciisu ay isku hannaan ku socdaan. qofka muslimkaana la rabo inuu si fiican u dhigto. magacyada ilaahay waxay leeyihiin waxyaabo u gaar ah, waxayna leeyihiin tiro. waxay kaloo leeyihiin lafdi xadiis nabiga caleyhi salaatu wasalaam kusoo arooray oo la yidhaahdo man axsaaha. saddexdaas jumladood marka culimmada muslimiinta markay aada u darseen waxay leeyihiin waxyaabaha ilaahay magacyadiisa ay khusuusiga u yihiin waxaa ka mid ah, waxay culimmadu ku sheegaan waxa la yidhaahdo tawqiifi. yacni waxaa weeye magacii ilaahay laga sheegay oo qur-aankiisa ku sheegay ama sunnadu ku sheegay unbay ku eg tahay. adiga awood uma lahaanaysid inaad inta meel fadhiisato aad magac soo alifato oo aad magac samayso. sidaa darteed magacyada ilaahay subxaanahu watacaala waa inaad nas daliil ah oo aad ka soo aroorinaysid aada u haysato. culimmada muslimiinta qaar ka mid oo mucaasiriintii dhowaa ahaa oo sheekh xasan albanna uu ka mid yahay waxay leeyihiin ilaahay subxaanahu watacaala looguma magacaabi karo magacyada mucaasirka ah muhandisul kown. ilaahay asagaa dhulka injineeriya ma oran kartid. magaca nas kusoo arooray ama aayad sheegaysa ama xadiis sheegayo ma ahan. sidoo kale waxay leeyihiin khusuusiyaadkiisa waxaa ka mid ah waxyaabaha u gaarka magaca ilaahay in aanan magac shar tilmaamaya oo asalkiisa shar ka imaanayo aanan ilaahay subxaanahu watacaala lagu sifayn karin.
وأذن أرنكن إلهي وشديد العقاب ما أذن إيكن إلهي وسريع الحساب. وايو إلهي سبحانه وتعالى قرآن كسوح كلها ينبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأيضا كاغا موقتو تلمانتي وناكسنين تصبو الشيغي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. marka ilaahay subxaana watacaala sifada ka dhalanaysa haddii magax sharci ka dhalanaya ilaahay subxaana watacaala toos looguma tilmaami karo ama loogama dhigi karo magac. waxaa jira magacyo uu ilaahay subxaana watacaala la gaar yahay oo uu keligii leeyahay. waxaa ka mid ah arraxmaan. waxaa jira magacyo lala wadaagi karo oo khalqigiisu ay la wadaagi karaan isagoo si kale iyo sifo kale leh oo ay ka mid tahay assamiic. waxaa jira waxyaabo ilaahay subxaana watacaala iyo khalqigiisu ay xagga sifada mararka qaar ay si uun u wadaagi karaan laakiin ay kala duwan tahay meeshay ka imaanayaan. waxaa ka mid ah almuntaqim ama aargute. waxay dhahaan khalqigu marka uu sameynaya aargudashada wuxuu ka imaanayaa nacayb, wuxuu ka imaanayaa karaahiyo, wuxuuna ka imaanayaa dan shakhsiya uu leeyahay. laakiin ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka keenayaa cadaalad inuu sameynayo. sidaa darteed magaca ilaahay wuxuu ku dhegan yahay mararka qaar maskaxdaadu meesha ay u diyaarsan tahay marka ay maqasho waxa kusoo dhacaya. maxaa ka mid ah haddaa allah maqasho ilaahay subxaana watacaala keliya ayaa kugu soo dhacaya. haddaa maqasho alwaaxid waxaa kugu soo dhacaya ilaahay subxaana watacaala inuu keligiis yahay. saa darteed waxyaabaha jiritaanka ilaahay ku barayay ka mid tahay markaad alwaaxid maqasho ilaahay baad xasuusanaysaa oo maskaxdaada ay kusoo dhacaysaa. saa darteed magac kasta oo wanaagsan oo qurxan ilaahay subxaanahu watacaala tilmaantiisaad ka baran doontaa. tilmaantiisa wanaagsan baad ka baran doontaa, magaciisa wanaagsan baad ka baranaysaa. waxay kaloo culimmadu ka hadleen tiradan la yidhi 99 maxay tahay. waayo qur-aanka magacyo ilaahay subxaanahu watacaala fara badan baa ku soo aruuray oo culimmada qaar markay findhicileen oo istiqaaqaadkeeda aadeen oo aruuriyeen qaarkood ilaa 120 magac bay gaarsiiyeen. xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray ee dhahaya inna lillahi 99 isman man axsaaha dakhala aljanna. culimmada qaarkood waxay ku fasireen inay tahay 99kan haddii aad barato oo aad xifdiso oo aad weelayso inaad janno ku gelayso. marka culimmadu waxay yidhahdeen waxay la mid tahay sidii adigoo dhahay hebel wuxuu haystaa 1,000 dirham ama $1 haddii lacagta maanta jirta aan isticmaalno $1 buu haystaa. $1,000 wuxuu ugu talagalay sadaqo. macnaheedu maaha inuusan xoolo kala haysanin. waxayna culimmadu u daliishanayaan xadiiskii ducadii ku jirtay asaluka bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitaabik aw callamtahu axadan min khalqik. oo caddaynaysa ilaahay subxaana watacaala magacyadiisa inaan lasoo koobi karin, tilmaamihiisana aan lasoo koobi karin, laakiin loogu talagalay magacyo lambarkan 99ka la sheegay ama magacyada ilaahay oo la sheegay in adiga aad ilaahay ku tuugto ood ku barido. sidaa darteed culimmadu waxay leeyihiin markaad qur-aanka lambar ku aragto ama xadiiska lambar ku aragto mararka qaar waa tawqiifi. waxaa la yidhahdaa zabaniya inay 19 yihiin. maxaa laga wadaa? ma naqaano. albaabada jahanamada waxaa la yidhi waa 7. ma naqaano waxay tahay. salaada waa la ratibay 2 3 4 4. sababta loola jeedo ilaahay subxaana watacaala baa garanaya. sidaa darteed culimmadu waxay leeyihiin kelmadda la yidhaahdo axsaaha waxaa loola jeedaa inaad lafdigeeda fahamto, tiradeeda fahamto, macnaheeda fahamto, ilaahayna aad ku barido. culimmada sidaa tafsiirkaas u sheegtay waxaa ka mid ah ibnu qayim aljawsiya oo sheegay maraatibtaa 3 ah oo ah inaad magaca ilaahay tiro ahaan u taqaano, lafdi ahaan u taqaano, waxay ku tusinayaan taqaano, fahamkeeda taqaano, kabacdina aad ilaahay ku barido. sidaa darteed waxaa laga rabaa qof kasta oo muslima inuu la yimaado aqoon uu leeyahay magacyada ilaahay oo magacyadaasna uu alla ku baryo, mar walbana baahidiisa midda ka dhalanayso uu ilaahay ku baryo. haddaa faqiir tahay inaad ilaahay ku barido alghinaa. ilaahay subxaana watacaala waa hani, aad magaca hani ilaahay ku barido. haddaad u baahan tahay karam iyo in lagu sharfo iyo in deeqsi aad noqoto iyo in xoolaha lagu furo, haddaad rabto in ilaahay wahaab uu ku deeqsiiyo oo kuu deeqtoomo, hadba baahidaada magaca u dhow inaad ku barido. sidaa darteed culimmada muslimiintu magacyada ilaahay kutubo aada u fara badan bay ka qoreen. inta aniga shakhsiyan aan arkay ee aan liisgareeyey culimmadii taariikhda islaamka oo aan magac ahaan u qoray oo liisgareeyey 154 kitaab bay ka badan yihiin. waxay ku tusinaysaa marka intaas haddaan aniga arkay inay inta kale 100 kitaab ay jiraan oo culimmada muslimiintu ay ka qoreen. intaasna waxay kusoo koomaysaa qofka muslimka ah muhiimadda ay u leedahay inuu barto magaca ilaahay subxaana watacaala iyo tilmaamaha ilaahay oo hadhow la rabo inay kuu noqoto dhaqan jiritaankaaga iyo shakhsiyadaada qayb ka noqda
والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة ربي الله وبركاته. بوحد